use adeegsiga of proverbs Soomaalida is therefore sida daraadeeda regarded waxaa loo tixgeliyaa as inay tahay sida a sign astaan ama calaamad of a wisdom ee caqli ah ama waxgarad ah. Learn baro. The following proverbs waa mahayaalka oo isku yaalo baro. A small piece of meat finishes a plateful of food. A small place saxan yar ah of meat oo hilib ah finishes wuxuu ku dhammaadaa a plateful saxan buuxa of oo ku dhammaadaa food cuntadii. maxaa laga wadaa meesha? It means macnaheedu waa one qof should not despise waa inuusan yeesin small thing shay yar ha yeesin just hadda because of maxaa yeelay one qof does not know ma garanayo its value qiimaha uu leeyahay shayga ma yaqaano marka wax yar ha yeesin. A small piece of meat finishes a plateful of food. macnaheedu taasaa laga wadaa qofka waa inuusan yeesin shay yar ah hadda maxaa yeelay qofka ma yaqaano faa'iidada uu leeyahay shaygaas yar. One finger tan labaad one finger far yar ama hal far does not kill ma disho a loose injir ma disho. One finger hal far does not kill ama doesn't kill ma ay disho a loose waxaa leedaha injir waa hal injir. It means waxaa loola jeedaa it iyada emphasizes waxay ku adkaysaa the importance muhiimadda ay leedahay nagu adkeynay of unity midnimada or ama helping kaalmeynta la kaalmeeyo one another kiiba kan kale iskaalmeeyo ayay nagu adkeynaysaa. It emphasizes waxay nagu adkaysaa the importance muhiimadda uu leeyahay of unity midowga or helping ama kaalmeynta la iskaalmeeyo one another kiiba kan kale wada jira awood leh. Tan saddexaad too many cookies karyaalo badan spoil waxay haleeyaan waxay ku dheelaan the broth maraqa ama sugada ayay ku dheelaan. Too many cookies karyaalo badan spoil waxay ku dheelaan the broth maraqa ama sugada. It meaning macnaheedu waxaa loola jeedaa if too many people interfere a job cannot be completed well. If haddii too many people dad badani interfere ay faraha la soo galaan a job shaqo cannot be ma ahaan karayso completed mid ku dhammaanaysa well shaqadaas ma noqonayso mid ku dhammaata si fiican. midda afraad one good turn deserves another. One mid good turn shay wanaagsan markaad celiso deserves waxay u dhigamaysaa another mid kale wanaagsan adina in lagu siiyo. It means waxaa loola jeedaa it's used waxaa loo isticmaalaa to encourage in lagu dhiirigeliyo people dadka to be inay ahaadaan candy kuwa naxariis leh and generous oo deeqsi u ah to others kuwa kale. Number shanaad God helps those who help themselves. God helps those who help themselves. God ilaahay helps wuxuu caawiyaa uu kaalmeeyaa those kuwaas who help oo kaalmeeya themselves nafsaantooda kuwa iskaalmeeya Allah ayuu caawiyaa. Meaning macnaheedu waa it encourages waxay dhiirigelisaa people dadka to strive inay isku dayaan. People waxay dhiirigelisaa it encourages waxay dhiirigelisaa people dadka to strive inay isku dayaan sida to attain ay u gaari lahaayeen their goals himilooyinkooda ama ujeedooyinkooda ay u gaari lahaayeen. Number 6 a little knowledge aqoonta yarta ah is a dangerous thing waa shay khatar ah. A little knowledge aqoon yar ah is a dangerous thing waa shay khatar ku ah. Cilmi yari waa mid aad khatar u ah. A little knowledge aqoonta yarta ah ama cilmiga yarta ah is a dangerous thing waa shay khatar ah. Number 7 failure teaches you success. Failure guuldarada teaches waxay ku baraysaa success guul ayay ku baraysaa. Failure guuldarada teaches waxay ku baraysaa success guul. Number 8 10 minutes to make a practice is better than 10 years of studying. 10 minutes 10 daqiiqo ah to make aad ku samayso a practice muraajaco practice badan aad samayso is better than waxay aad uga fiican tahay 10 years 10 sano of studying aad wax baranaysid. Practice-ka aad u muhiim u yahay ardayay la socda. Number 9 fruits miro
in your hand is gacmahaada ku jira. Never be casted, marna looma qubo, marna looma daadiyo. For those up kuwa saaran on the tree geed kortiis. Fruit is in your hands, never be casted. For those up on the tree, fruit is miro in your hands gacmahaada ku jira. Never marnaba be casted, marna looma daadiyo, marna looma qubo. For those up kuwa saaran on the tree, geed korkiis kuwa saaran marna looma qubo. Learn today and tomorrow. Waa nambarka 10aad. Learn today, bara maanta. War hooy maanta wax baro. And tomorrow bir waa kasbanaysaa, waa ku shaqaysanaysaa macnaha. Learn today, bara maanta. And tomorrow bir waad kasbanaysaa. Speaking without aim is like shooting without aim. Speaking hadal without aim aan ujeedo lahayn is like waa sida shooting waa toogasho without aan lahayn aim ujeedo. hadalka hadduu ujeedo lahayn waa toogasha ujeedo lahayn. Time and tide, waqtigii hirkaba. Wait for no man, qofka ma sugaan. Knowledge without behavior is like a tree without seeds. Knowledge aqoon ama cilmi without aan lahayn behavior akhlaaq is like waa sida a tree waa geed oo kale without seed waa geed aan miro lahayn waa. Knowledge without behavior is like a tree without seeds. Aqoon ama cilmi aan akhlaaq aan lahayn, qofka duusan adab lahayn wuxuu la mid yahay geed aan miro lahayn. ma fiicna aqoonta naftirkeeda waxa la rabaa in adab aad ku darsato, adab aad ku darsato loo baahan yahay. alla ka cabsi ay ku jirto meesha. Experience is a good teacher. Experience khibradda qofka way aragsan ama qofka go-weyn is a good teacher, waa macallin fiican waa. Experience way aragnimada is a good teacher, waa macallin fiican. halkaas ugu baxnay.